haddii intaa aynu dhaafno dabcan su-aalaha la isweydiinayay su-aalihii la isweydiinayana dee sidii daahir shaksiyadiisu waxa weeyaan ay dhigaysay ayuu waxa weeyaan runtii dee u abbaaray oo uga jawaabayay mid walba inkastoo xaggiina dee aan arkayay maxaa la yidhahdaa in dee weerar iska yara jirayo malaha dee wax gaar ahoo mala qoladiisana ha noqoto ama wax kalena ha noqoto idinkoo dhinac ka diidaya haddana dhinac aad ka ogolaydeen taa laftigeeduna aad uma fiicna oo qofku shaksiyadiisunbuu mas-uul ka yahay dabcanna sidaa aad idinku u qirteen daahir inuu maxaa la yidhahdayay dadkaa soomaaliyeed dhibaato waxa weeye laga yaabo inay ku dhici karto uu garab istaago ayuumana nana u ognaayay daahir inuu nin suxufiya oo dhacdooyinka waxa weeyaan dhulka soomaalida ka dhaca un ka hadla uu yahay marka taasna waa saxaafadda iyo xeerkeeda adiga dooda ku socotaan daahir iska dha daahir iyo wiilashii wixii dhex maray way dhex mareen dooda kaleeto ku soco daahir iyo wiilashan wixii dhex maray oo laga wada hadleen يعني عقاب لك كحجي الرسم على لماذا دوني سواء كان ظاهر مقر وصنع لين هوية من هبلي هذا هو عاوب الواحد هايصو يو نيرشين كات سمين صار من نقد بقيس أنا كمان واي أصلا واي ضار وحيا إيش أنت هذا هلا أصلا درويش الله أري أو كفتنا إله أنا درويش ونيك كوا حكومي مركز لك هلا واي sababtoo ah adoo nin dhulbaanta ah maanta xor iyo madax banaanimo haystidii waxaad hor tagtaa أجمعي قد ما صير hargeysa laga xukumaa inta kalena waa laga yaabaa inaad casho tagto garowe marka horta ilaa hadda marka la dabaaqtamayo raggu warsingiriga iyo dhulbaantaha dabaaqtanka nin isaaq lama kaftami karaan runtaan kuu sheegayaa marka is soo xoreyso ood maamulka qaatuma dhisato ood noqotad madax bannaan ayaad ragga asaagaaga nin habar jeclaa ah oo reesh isxaaqa ayaad la good koosa kartaa anigu hadalkaa inta ugu baxaya واي horena waa wada hadlayseen horena daahir waa wada hadlayseen ay aad odhanayseen horaa isu tiraa daahir halkan ku qabsan maayo oo waxyaabaha dee daahir uu waxa weeyaan sheegayay dee waa isaga iyo saxaafadda badan ayuu hadalkana aynu kala helno walaalayaal ayuun baan anaguna waxa weeye ka taaganahay midda meesha taalla baa taallaa midda meesha taallaa waxa weeye marka aad leedahay darwiishow halkan hawiye iyo waxaa ku kaftamayay iyo daarood waxaad ogaataa horta ninka kula hadlaya waa dir haddii aad dir kaftan uga baahan tahayna horena waa u kaftami jirin maxaa la yidhahdaa iminkana waa kaftami karnaa wax dhibaato ay kuma jirto laakiin waxaa muhiima qodobka laga kaftamaya muxuu yahay inaynu isla ogaano si ay dadka soomaaliyeed ee meesha daawanayaana inoola ogaadaan iyadu waa taa haddii ha dhowto laakiin baasho ay noqoto dhinacii walba in laysaga cararo waa dhibaato waxaan ogahay anigu taariikhda aan hayo dhammaan shantii soomaaliyeed dadka ugu awoodda badan leh maxaa la yidhahdaa ugu waxa weeye siyaasadda cadcad ugu deegaanka badan leh inay ahaayeen waxa weeyaan erir haddii hoos aan uga sii degana dir ay ahaayeen haddii aan weliba kuu qodobeeyo soomaalida waqooyi waxaa ugu xigaa jabuuti dad waxaa degan dira haddii aynu soo dhaafno hoos soo dhaafno waa somalilan xornimo waxay qaadatay iyadoo laba gobol ah labada gobol waqooyi bari iyo waqooyi galbeed baa la kala odhan jiray midna tog dheer buu ahaa midna wuxuu ahaa hargeysa labaduba reer baa lahaayo dee waa dhul direed bay ahayd idina degmooyin aan 3 degmo ah ayaad xilligaa ku lahaydeen haddii aynu koonfur tagnana 6 gobol baa ka jiray waa xilligaas 6da gobol ee koonfur ka jiray marka gobolka majeerteeniya laga reebo inta kale wax degmo ah xitaa kumaydaan lahayn haddii aad caawa sheegan doonto oo aad odhan doonto degmooyin baanu lahayn waxaan kuu qirayaa mudug inaad degmo ku lahaydeen waa sax waxaan kuu qirayaa degmo kale inaad lahaydeen allahuma salli calaa sayidina maxamed labada alto inaad mid degmo ku lahaydeen oo afmadow ay ahayd laakiin inta kale ee deegaana wuxuu ahaa deegaan dir iyo hawiye iyo raxan weyn reer kaleeda ay degan yihiin soomaaliya horta sidaasaan kaga gudbayaa iyo jabuutiba oo adigu gobolka majeerteeniya ayuunba deegaan ku lahayd markaynu ka tagnaa kenya tagno waa 2 gobol
waa Gaarisa iyo Wajeer labada gobol say u kala qaybsan yihiin dadka Soomaaliyeedna way yaqaanaan iyo MB-yada ka soo baxa iyo taariikhdeedu siday kala ahayd waa dad maxaa la yiraahdaa haddii ogaadeen gaar loo saaro ogaadeen un baad daaroodka degan ugu badan sidaan ogahay haddii gaar loo saaro markaa waa dad aan u dhigmin iyaguna haddii la isku daro maxaa la yiraahdaa iyo sidoo kale waliba hawiyaha qaybta ka degan haddaan waxaas oo dhan soo maro waxaa soo hadhay Ethiopia waa 3 gobol dadka Soomaaliyeed sida uma yaqaanaan gobol waxa la yiraahdaa ogaadeen waa gobolka ugu sokeeya Soomaaliya xadka la leh waa in adigu aan ku qiyaasi karo inay markii hore ahayd ilaa 2 gobol iyo something waxa ku xiga Howd Reserve Area waa jigjiga Shaniile ilaa iyo Hargeysa agteeda wixii ka soo bilaabmay ilaa Buuhoodle laga soo gaarayo waa Howd Reserve Area maaha ogaadeen iyadana waxaa majority ka ah ama deganaa dadka dirka ah oo Ciise iyo Samaroon iyo Isaaq waxa la soo raaco soo degan dhulbahante iyo reer adigu harti oo kale haddii aynu taa dhaafno gobolka ugu shisheeya waa Herergi waa Diridhaba Herar maxaa la yiraahdaa iyo dhulka wixii ka soo sokeeyay intii ay Soomaaliya lahaan jirtay ismaamul gooni bay maanta leeyihiin oo caasimadii labaad ee Ethiopia waa Diridhaba ismaamulkeedana deniman diraba iska leh oo maamula Ciise iyo Gurgura markaynu dhulka inta leega baaxadda la marayno adna aad xaggana gobol ku yeelatay Majeerteeniya la oran jiray xaggana aad gobol ku yeelatay ogaadeen la oran jiray de ma garanayo taariikhda kale ee maanta aad baaraysaan halka ay ku jirtay haddii taariikhda aan sheegay aad dib ugu noqonayso oo bal aad waxaan ka tegay oo daarood lahaa aad sheegayso iyadu waa gar haddii aanad keensan karayn walaal aad ku dhalatay 18 gobol baa jiray iyo 18 gobol sidan ay ahaayeen iyo sidan u malayn maayo dee taariikh in af lagu sameeyo wixii jiray un baa horta taariikh lagu sheegi karaa markaynu walaal taa ka tagno Somaliland maanta adigu nin dhulbaantaa baa tahay Somaliland baa degan tahay dabcan sida daahir oo saxaafadiisa u taageerto dadka dulman dhinac walba jooga anaga lafteeda waanu taageernaa inta waxaanu naahnaa warnimo xorriyadda iyo Soomaalinimadu aad bay qaali u tahay waxyaabo badan balance ha laga sameeyo saxaafadda dhanina way ka midaysan tahay taa oo marba meeshii war ka dhaco ayuunba saxaafaddu warkeeda tabisaa marka taariikhda aad caawa ku haysateen ninka leedo daahir ma waxaad doonaysaa inaad tii aad horumariso oo aad tiraahdo waxbaa jiray aan jirin oo taariikha mise wax kale oo ka duwan intaa aan hayabaad haysaa walaalba soo dhow daahir horta uu kaftamay gobtuna kaftanka kama daba tagto hadalkiisa kama daba tagayo maadaama aan gobahay aan ka soo jeedo gurigii gobonnimada iyo xorriyadda iyo gabayada iyo waxa weeye go'aan shaalka iyo murtida taa markaa kaga gudbo ciise horta doodaadu adigu aad bay jaban tahay wad markooda waxaan doonayaa mahad celiyo boqoradda waxa weeye SJ inaad artay waxaan leeyahay mar kale waxaan mahad celinayaa dhulbahanta wan hanad dhammaantiin ma reer aad bad mahadsantiin taa markaa kasoo gudbo doodaadu aad bay jaban tahay doodahaaga meelaha la fadhiisato ciisow waxaan TikTok ugu yimi adigoo beena ka faafiya waxa weeye TikTok markii aan dhowr jeer wada doodnay beenii horta waad yaraysay caawana habeenkii ugu dambeysay baan kaaga dhigaya waxa aad ku doodaa 60kii 2022kana waad ka doodaa waxyaabaha aad ka doodaana waxay ku saabaysan yihiin deegaan markaad ka hadlayso waa inaad dib dalka u eegtaa horta hore wixii u soo jiray dalkan Soomaaliya shantii Soomaaliyeed haddaynu nahno shantii Soomaaliyeed mise waxaad igala hadlaysaa qararada sabanka doodaaduna jabantay baan ku sheegay qararada sabanka haddaad igala hadlayso waa meesheeda waxa weeye shanta Soomaaliyeed igala hadlaysanayna waa meesheeda bas laakiin doodaadu way isburinaysaayoo labadii midna kama hadlina waa isdhex dhigtay laakiin anaa ku kala saaray iyadoo jawaab oo cad ayaan ku kala saaraya mid walba intaan saafo ayaa waxa weeye sooyaalka ku qoraya siday hore ugu qornayd mar kale ku dhigaya Soomaali galbeed ama ogaadeniya horta leedahay meeshaas diyaaradu markay kor marayso ogaadeniya Ethiopia ogaadeniya ku soo qoraysaa wixii halka ku nool waxaan ku caafiya horta iyaga wad iska ilaawaysaa wixii halka ku nool ee ka jira caafiya horta iyaga wad iska ilaawaysaa waxaan u soo gudbaynaa waqooyiga Soomaaliya laba halgan baa ka dilaacay waxa tii qalinka ahayd iyo tii qoriga ahayd labadaba midna gaar bay ahayd midna waxa weeye percentage 50% ba kulaha markay noqoto tii
ninkii meeyadii yadoodii heesa oo war intuu aaday ninkii maxaa ku dhacay ma inuu ka dib telefoonka laga yaabaa internetka ka tagaa laga yaabaa suginaadeen daraawiisha suginaadeen waxyar isug ciise haddii aa by accident oga dhacday soo dalba haddane haddii aa carartayna noo soo sheeg insha allah duqbilow waa ku salaama boobe soo dhowow adigana insha allah dhammaantii soo dhadhawaada taariikh wax ka miiqaan duqbilow iska dhaaf lo'du buuraa dairo maadaama ninkaas hoos joogo daaroodku hadduusan ninkaas fadhin waad sugaysaa intuu imaanay hayo diyaar waay okay haddaad wax ka sheegtaana ku joogo wado hadalkaaga walaal waan dhegaysanayee waayahay ha bixina walaal fadhi haddii ay doodu ogaadeeniya halkaa iyada waynu kasoo gudbayna waqooyiga soomaaliya laba waxa weeye halgan baa ka dilaacay labadii halgina ka dilaacay midna qalin buu ahaa midna qori buu ahaa midii qoriga ahayd horaan uga idhi mar waxaan idhi korka iyo waxa laga jira 4 koonood ee kumanyaal gaal iyo kuwii shalay koofi laayay rag kiniisad necab baa jira iyo kristankoodii iyo lacagkii shir lagu soo riday oo ay kooxi daba kufkaygaba ahayn hayla soo kicin talyaanigu markuu koonfur degay kuna kadeedayay waa daahir markii la haysta weey daahirkan dhigada weyn soo dhigay markii la haystay halka lagu gumaaday waxa weeye lagaga gudbayay adiguna aad duud xamaalka marka aad ahayd waxa weeye maxaa la ii sheeg sidii aad ugu foogna sidii aad dhulbaantay dhulkan aad uga soo dhacsan lahayd uu ka haysto aad ingiriiska kula jirtay waxa weeye dhiilka aad lahayd dalkayga saa doonta iga yeelo laakiin dhulbaanta dhulkayga la dhici talyaanigu markuu koonfur degay kuna kadeedayay ingiriisna kaari hore iyo ciidamadii keenay kobtan ma lihid anigaa idhi oo kiciye gaalkii idoor korkaa laga rartay kaamana diidana waa kii sidii koran awreed keenada lahaa iyo anigaa garbaashadii ka riday kabadii saarnayd ee kalluunka iyo beerahan lahaa way kobcinayaane hadduu kaba ka waaweyn gashado ama kur dheer fuulo nin waliba wuxuu kasbaday waa la kulansiin waar kamaan dawstii yurub baan liqay oo aan kiisi qabanayn baan horta halkaa kala ahaa iyadoo ku wada hadli mayno qoriga ta qalinkan usoo laabanayno qalinka sugaan baan kugu sheegay ta qalinkan kasoo laabanayno qalinka garaad cali ayuu ahaa ninkii waxa weeye xornimada soomaaliya qaybta ugu badan ka qaatay in qalinka lagu soo dhiciyo markii 60kii la qaatay xorriyadda gobolka togdheer oo ahaa gobolka ugu ballaaran waqooyi gobolka togdheer oo ahaa gobolka ugu ballaaran waqooyi waxaa ka noqday gudoomiye nin waxa weeye dhulbahantaaba ka noqday oo reer buuhoodlaa wuxuuna ahaa ina buryar adiguna markaa waxaad ahayd maxas waxa weeye sugta gobolka togdheer sidii aad ula wareegi lahayd mar kale maamulkiisa iyo meeqaamkiisa iyo matalaadiisaba balse laakiin way kugu dheeraatay xaggan iyo koonfur haddaynu wareegno maxaa tiri labada maanta horta goboladan soomaaliya aad ka sheekeynayso ama anigu aan magacaabo ama nin kale ha magacaabo ninka maanta haysta ee fadhiya ee ka talinaya hadday noqoto caasimadii muqdisho hadday noqoto jubbooyinka hadday noqoto majeerteeniya hadday noqoto ogaadeeniya hadday noqoto waqooyiga soomaaliya intuba waa aniga dadku waxa ay weeye waa in aan dulmiyey iyo in ii dulman hadda daawo dadku intaasay kala baxaan haddii aan u soo noqonno waxa weeye shantii soomaaliyeed labada meelood ee keliya ee lagu magacaabay ama lagu xusay reero ka mida soomaali waa daaro majeerteeniya iyo ogaadeeniya haddaday waa majeerteeniya iyo ogaadeeniya waa labada lagu xusay maanta haddii dalka soomaaliya marka laga kala baxo waxa weeye waqooyi koonfur galbeed iyo bari marka loo qaybiyo 4 jiha loo qaybiyo waxa kale soo raaca waa majeerteeniya iyo ogaadeeniya ee afka lagu hadday afka lagu dhiftaa waa ogaadeeniya bag ad waxa tinin dira baan hayba dirnimadu waa waxa aad maashalay tole kaaga gabi abwan suusli ee uu kulaha abtow hayaan badanida ama meelis ugu hagaagtaan xurmadaada nimankii qabtaa ku hamuun qaba xurmadaada nimankii bartaa ku hamuun qabee hamaasigii madayn libaaxi ka hamsiin jiray hawiye iyo daaroodba waa haama soo jiro labaduba haybta hore loo ogyahay ma diidaan hawiyahan dib ha lagaga soo biro laakiin hawiye haybtiisa ma diido hawiye haybtiisa ma diido isagu wuxuuda halkoodaas cid aan soo darsan ha noqoto buug furan oo la soo gala ha noqoto laakiin waa dad abtirsinkoodu khalad iyo sax waxa noqoto halkii ay noogu sheegeen waqtigii hore wali la taagan balse laakiin adigu maalin dooriyad baad nagula dooday maalinna waxaad nagula dooday waxa weeye inaad tahay waxa loo yaqaano maxaa la ii sheeg reer binu haashim
maantana dir baad nagula dood haddii aan dirnimada ku siiyo aan kuu shaambadayo dirnimada inkastoo hore awowgay u yidhi wuxuu yidhi awowgay markuu idinka idin caddaynayay taariikhda duugaa haddaan dib u gadaal raaco diiwaanka waxaa kugu taallaa waa dir baana maantana durriyad baad nahaad nagula doodeen inaa hadba dul noo sheegataan waa dayuusnimo adoo aabbahaa didi baad dooni ruux kale adoo aabbahaa didi baad dooni ruux kale duqu idin dhalay baad meel cidlaa kaga dareertay maanta dirnimadan aad sheegayso ee qasabka ah ee aad ku awrkacsanayso shalay tolana uu dhinaciga ku awrkacsanaya haddii aan ku siiyo maanta dalka Soomaaliya today baynu taaganahay maxaad ka tahay ogaadeeniya inaan ka haysta waa inaan ogaadeena maxamed subeere reer isaaq wixii halka ku nool ogaadeen bal reserve area soo qaatay adoo kala jiray ogaadeen reserve area haddii aan kugu soo laabto reserve area hore maxaad ka haysteen maanta maxaad ka tahay reserve area gobolka kaliya ee waqtiga laga aqoonsanaa gobolka doolo ahaa gobolka doolana ma deganay gobolka doolana ma deganay inkastoo aan doolo looran jirin oo magaci marka loo oran jiray oo doolo hadda la balaariyay laakiin doolo marka loo yaqaanay ilaa iyo intii walwaal loo soo gaaro uu gobolkaasi ku magacaawna laakiin wixii inta ka dambeeyay markii nidaamyadii iyo waxa weeye ay yimaadeen dawladihii iyo systemkii la balaariyay reserve area waxa aad ku leedahay gaashaamo iyo meesha la yiraahdo waxaad ku leedahay Shinila soo qaadatay Shinila okay Shinila qaado waxaad soo qaadataa gaashaamo degma iyo xarshin baad ku leedahay reserve area minority baad ka tahay ogaadeen iyana ku wada hadli mayno reer baba magaciisa qaatay oo wixii halka ku nool waa dad dulman wixii aan ogaadeen ka ahayn iyo beesha daro wixii aan ogaadeen iyo beesha daro dad dulman bikeen waayahay su'aasha hadaba anigu adiga ku weydiinaya waxay tahay anoo hadaladayda qodobbaysanay adiga doodaad way jaban marka labaad aad doodaada ku soo laabato waxaan ciiso isku daydaa in sida bal inaad hadalka dhaabadayn karto oo dhibic waxa weeye laga raad raaco aad hadalka u yeeli karayso ha ku noqon hadalka iyo dooda ha ku noqon waxa weeye maxaa leeyahay ii sheeg roob shuuxa oo meel ka daay oo raadka hore tirtiray ee waxa isku daydaa inaad hadalladaada qodobbaysato qodob walbana lambar u yeesho si doodaada loo tiraaco ma shantii Soomaaliyeed baad igala hadli mise qariirada sabanka ah ee today anigu aan kugu maamulo ee waxa weeye aan ku diidanahay aqoonsiga shalay toban qofka aad ka cabanayso ee aad uga baxday Soomaalinimada calanka saddexda qeyda ah ee la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah aad ku qoratay la ilaaha illa muhammad rasuulullah jacayl kama ah daarood aad kaga banaysa ugu qoratay laakiin ambalayga ma xigo la ilaaha illa muhammad rasuulullah calamaanteedan ba ku soo qoranaya masaajidadan ku qoranaya meel walba way igu taala la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah tan ku leeyahay kuma gaban kareysid gabaadna kuma noqonayso su'aasha adiga san u dhaabadaysan hadalkayga waa inaad u qodobbaysataa haddii aan dirnimadan aan ku siiyo oo aan ku shaambadeeyo ma tihid laakiin haddii aan ku siiyo aan ku shaambadeeyo dirnimada aad maanta sheegayso maxaad ka tahay dalka Soomaaliya ama shanta Soomaaliyeed maxaad ka tahay marka laga yimaado Djibouti oo dhibica oo waliba haaf ay degto canfari ay degto oo waliba anigu aan siiyay aqoonsiga Maxamed Siyaad Barre u ogolaaday in la aqoonsado u sii daayay oo loo ogolaaday marka taa laga yimaado ogaadeeniya waqooyiga Soomaaliya koonfurta Soomaaliya iyo waxa weeye NFD maxaad ka tahay waa su'aashida labaad ee aan ku weydiinaya waxa ay tahay qodobka aad ila doodaysaa ma shantii Soomaaliyeed baa waa kow mise waa qaradii sabanka ahayd waa labo taas qodobka saddexaad aan ku weydiinaya waxa tahay ee aan doonaya inaan si fiican ku weydiiyo 60kii markii waxa weeye xornimada la qaatay iyo ka horba maxaad ahayd ka hor waxaad ahayd baad noo sheegaysaa anigu ka hor waxaan ahaa boqortooyooyin jirta hadday noqoto bariga Soomaaliya ninka la yiraahdo Suldaan Cali Keledid oo waxa weeye Daahir Cali Sow halkan fadhiya gumaysan jiray waan soo gabagabeynaya Daahir Cali Sow halkan fadhiya Suldaan Cali Keledid oo nin Maxamuud Saleebaan oo majarteena oo Maxamed Harti waxa weeye Cismaan Maxamuuda baa haysan jiray halka ku gumaysan jiray hobyo Suldaan Dubacad daaraha khatiman badaha guudkooda hawiyaha dadkooda sideed diidi amarkiisa baldayaay dad buu noo xiga waana daraftay uu awowgii mar kale lahaa guusko aan iska jaro iyo inaan labada warangooyay ee guuska ku calaacaliya daahir awowgii daariga halkan fadhiya waa taas boqortooyada labaad ee jirtay waxay boqortooyadii waxa weeye boqor waxa weeye Cismaan boqortooyada saddexaad ee daarood haystay ama harti haystay waxay boqortooyada Suldaan Cali Keledid
waxaa leeyahay suldaan cali shire boqortooyadii afraad waxay boqortooyadii garaar cali bay ahayd dhulbahante adiga hal boqortooyaa kaa jirtay oo halkaa boqortooyada weliba adigu habar jeclaato maad lahayn waxaa lahaa habar yunis baa lahayd ama garxig sirka la yidhahdo wuxuu ahaa ninkii loodhan jiray ina ammaan oo waqtigaas ina ammaanna uu isdhiibay oo qof la haysto ingiriisku haystaa waxaad ii sheegaysaa wixii sandaladii hore aad lahayd ingiriiska ka hor 60kii waa taasina waa qodobka saddexaad kadib se maxaad noqotay si halgankii dagaalka ahaa maxaad ku lahayd afartaa su'aalood baad iga jawaabaysaa hadalkaagana qodobe si loo taaro waayahay new horta in badan baan ku dhegeysanay waxaan ku dhex gelayaa horta hadalka doona u dheeraysteen waxaan rabaa markaad doonaysid soo qaado soo kooba hala soo kooba laba rabo qofku hadal ku celceliyo muhiimadda qaata horta 2 minutes baaban ugu soo koobay anigu taydii hore iba furka ahayd oo aan doonayay inay ii qodobeeyaan intuu dooda ay socoto like soo saara videoga like saaraas insha Allah hay ku socoto okay u saarayna way marka isla tahay waqti uu qabo hadda wixii ka dambeeya waqti noo qabo ma dhima soo hadashay baa waqtiga lagu qaban lahaa hadii lagu qabanayo wax yar yar okay ni horta meesha mid taalaba waxay tahay hadal qodobaysan baan ku dhiibay oo shantii Soomaaliyeed ba ka hadlaya Djibouti baan ka soo bilaabay ilaa iyo koone gobol walba waan ku dul istaag lixdii gobol ee koonfureed ee aad ka majiirteen iyo kaliya ku lahayd ee aan ku xitaa degmo kale waxaan ka ahayn hal degmo oo gobolka Mudug oo xilliga degmooyinkiisu ay dhow Samareeb waxa la yiraahdaa iyo maanta meelaha gobolada kale loo ay ahaayeen mooyaane aan kuaga ogolaaday mooyee wax kale adigu maad sheegan waan lahaa iyo maan lahayn midna maad odhan taa macnaheedu waxa weeye inaad ogoshahay un lixdaa gobol inaad halkaa gobol ee majiirteen iyo ku lahayd iminkana bari loo yaqaano waaya markaan taa kaaga tago horta 1000 qarni ka hor waa 1911kii ayaa awowgay wuxuu idinku sheegay intan iminka anigu aan ku tusayo Soomaalina taariikhdeeda ka wada muuqdo si fiican dhinac walba la eego uga wada muuqdo wuxuu yiri war haraanka iyo faanka waa iska hida raacdeene rag haddaad u haysaan iyo barbaar halabsato fuusha marun baad u heensayn lahayd hawl yaraan subaxe heegaale kama qayliseen hoga kaleeleede goortan harkaba ka eriyad hawdu cararteene waa ka hubkii sida ragii wada hareedna hadaba leeg inaad faanuun noloshiina ku dhamaysateen aan waxba ka jirin waa 1911kii goorta la cadeynaya mid labaad baan dib ugu noqonayaa waxaan dib kuugu noqonayaa faankii wuxuu kula galay maanta inaad tiraahdo Somalilandna waxbaanu ka leenahay waxbaanu maamulnaa meeshii waqooyi ahayd ee waqooyi barina aad tiraahdo nin dhulbaanta aba gudoomiye ka ahaa laakiin taariikh xumo waa markaad been sheegtay lagu qabto dhageyso gobolka Togdheer waxa gudoomiye ka ahaa dadkuna hadday gogol gareyn karaan waxa gudoomiye ka ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo sidoo kale noqday madaxweynihii ugu horeeyay Somaliland ay noqoto markii xornimada ay dib u soo qaateen taasina horta waa beenta aad sheegayso midheedii koobaad ee anigu aan ku leeyahay iska hubiya aakhirana waa lama horaankii waaya aan kuugu noqdo Ethiopia aad ugu warwareegtay Ethiopia waxaan ku iri waaba 3 gobol aqliyadaaduna way garan weyday inaad 3daa gobol bal ama diido ama aad yeesho laakiin denin isfaaniyay waxaan maqli jiray waa riis nuugtay une waxaad ku soo celcelisay gobol baa ogaadeen iyo loo bixiyay waa loo bixiyay saa loogu bixiyay aan ku sheegay iyadoo Soomaali halgan ku jirto oo taariikhdii Soomaali ay doonayso inay soo ceshato dhulkeedii ayaa ugaaskii ogaadeen cararay oo xayl salaasa u tagay markaasuu wuxuu yiri anaa ku ogol in aad qaadato dhulka yagan una taliso Ethiopia-na lagu daro waxaad ii ogolaataa in magac ogaadeen iyo aad labadayda gobol igu bixiso labadii gobol waa loogu bixiyay daasid laakiin Soomaalidii kale waxay ka dagaalamaysaa Ethiopiaanka lagu daray hadda dhageyso raggii u kacay ee u dagaalamayayna hal nin oo daaroodi kuma jirin xornimada markaad eegto dhulka Soomaali galbeed ee lagu darayay Ethiopia raggii ka dagaalamayay waxay ahaayeen xisbiyadii Somaliland ka aasaasnaa oo SNL oo cigaal hogaaminaya ay number 1 ka ahayd NUF oo Michael Mariano oo hogaaminaya ay number 2 ka ahayd idina wax allaaliya waxaad contributionka Soomaalinimada ah ee dadka maqan loogu dagaalamayay ku lahaydeen ma jirto okay aaban dhaafo dhulkaasi waa 3 gobol oo 2 gobol dirba majority ka haddii aad ogtahay iyo haddii aanad ogeynba gobolkan kililka shanaad ee maanta la sheego cidda majority ka ahi waa dir hadda dhageyso
inkastoo idinka xukun ahaan Etoobiyaanku maadaama aad jabhad hubaysan oo kaarta ah samaysateen oo taadan waanu dagaalamayna mar walba uu islaha ku soo xirageliya madaxweyne inay qaataan baarlamaanka waa la idinka badan yahay baarlamaankii lagu aasaasay wuxuu ahaa 120 xubnood 76 ka midina dir bay ahaayeen haddaba aqliyadana dib ugu noqdo taariikhdana soo saxa oo in badan iska eega waxa ku hadlaysaan dadka kula kaftamaysa haddii aynu taaba dhaafno oo ka kaalayno gobol dhan baa soo haray oo ismaamul dhana oo caasimadii labaad ee Itoobiya ah waana gobolka Herergi la yiraahdo caasimadiisuna ay dir dhaba tahay caasimadii labaad ee Itoobiyana ay tahay haddaba dhageyso wax kuugu dhigma oo aad ku leedahay deegaankaasi ma jira waa maya kan lagula wadaagay waliba lagaaga badan yahay ayuun baad soo dhinac dhigaysaa haddii aad caqli kugu jiro waaya ka kaalay House Reserve Area waxay iyadu toos ugu biirtay ama ay israaceen ismaamulka kilka shanaad bay ka wada mid yihiin iyadii ogaadeen aan ka dhaaftaan taariikhda aan hadaba dib kaa geeyo salaadiinta aad sheegatay ee tiri xilli baan wax lahaan jiray ama boqorro iyo waxbaan lahaan jiray Soomaali taariikhdeedu may soo bilaabmin 60kii sidaad adigu waxa weeye ka dhawaajinayso ama aqliyadaada yare ay ku fartay war 60kii maxaa ka horeeyay 60kii maxaa ka horeeyay ninka waa ka rideen taariikhdii ugu horeysay ee Soomaaliya yeelato boqortooyo waxay ahayd boqortooyadii Ifat waxa ku xigtay adal hadda dhageyso adna waxaad ka hadlaysaa Suldaan Cali Shire oo 60kii la kowsaday waxaad ka hadlaysaa Keeradiid oo 60kii la kowsaday waxaad ka hadlaysaa boqortooyooyin shalay la aasaasay dadkii lagaga dayday ee taariikhda lahaa soo jireenka ah Soomaaliya oo dhan ay garanaysa ajuuraan waa boqortooyinkii ugu horeeyay ee Soomaali wax soo dhinac dhigmana reerkaagu taariikh ma yeelanin maantana af lagu yeelan maayo iyo faan aan meelna haysanin haddaan taa iyo waxaasoo dhan soo dhaafo waa ku tusay oo waxa xaqiiqo ku hortaala Ifad wax u dhigma oo 1000 qarni ka hor ah waa Axmed Gurey iyo ciidankiisii dagaalamayay wax u dhigma inaan reerkaaga abid ka dhalanin adeeg wax u dhigma inaanay abid ka dhalanin reerkaaga maxaa la yiraahdaa boqortooyadii adal wax u dhigma reerkaaga inaanay abid ka dhalanin boqortooyinkii Soomaaliyeed ee kale koonfurka jiray ajuuraan haday tahay iyo hadii ay tahay way dhulka halganka sida loo halgamay baa taala taariikh beena baad qaadataan iyo magacyo beena oo dhulbaanta kastoo aragtaa wuxuu qaataa darwiish laakiin daraawiish iyo dhulbaanta maxay kala ahaayeen garaadkii guud ee dhulbaante nimankii dilay ayaa horta daraawiish ahayd hadda bal u fiirso wax yar garaad cali iyadoo beer lagu soo aasaasay daraawiish oo daraawiish ay shaqaynayso ayaa garaad cali wuxuu la xidhay Ingiriiska dabadeetana ciidan buu ku saaray sayidkii garaad cali oo garaadkii guud ee dhulbaanta hadduu dhulbaanta daraawiish noqon lahaa iyo haddaanu noqon lahaynba ninka gacantiisa uu ku baxay wuxuu ahaa sayid maxamed cabdalla xasan waaya intaa kadib uu cararay inankiisii oo dhalay oo ninkii la wareegi lahaa maxaa la yiraahdaa garaadnimada ahaa garaad jaamac ahaa uu cararay boqor cismaan buu u tegey waa taariikhda maanta meel walba waxa weeye ku qoran ee adeerada xitaa ay qoreen in daraawiish iyo dhulbaanta jab weyni uu soo kala gaaray daraawiish waxay lahayd 7 nin oo golahaas 5 ka midii waxay ahaayeen reer Sheekh Isxaaq halka 2 qof ay ka ahaayeen reer kale ee ogaadeen dhulbahantana aanu hal qof ku lahayn waxaan ka ahayn nin basaas ahaa oo sayidku waraaqaha u dhiibi jiray markuu gabay tiriyay oran jiray hebel u gee oo Ismaaciil Mire la oran jiray adigana ay ku caddahay oo taariikhdaas ay meel walba ku caddahay buuga jaamac Ali Ciise qoray waa nin adeerkaaya ayaa dhakada kaga qoran raggii Ingiriisku lacagtooda madaxooda uu lacagta dul saaray ee 13 ahaa ayaa 2 nin oo dhulbaanta ay ku jiraan halka 7 nin oo isaaqi ay ku jiraan iyo 4 nin oo ogaadeena oo waliba ilmaadeer meedhana oo family Cabdalla Xasan dhamaantoodba waliba bahgari ogaadeen ayaa mid kasta dhakada kaga taalo waaya waxa ku jiray hawiye ayaa ku jiray oo maxaa la yiraahdaa 2 nin oo midina uu duduble yahay midina uu habar gidir yahay ay labadiiba ay waxa weeyaan daraawiish ragii madaxa dhakada laga saaray lacagta ila raadinayay ay ku jireen way halku ka taagnaa marka dhulbahante magacan maanta uu sito ee iska afka beerkiisa aan dhaafsisnay waa taariikh la idinku yaqaano in aad sheegataan wax aydan waxba ka ahayn sida maanta ba aan u aragno sol sanaag iyo cayn oo aydan midna deegaan ka mid ah oo majority xitaa ka tiin aan la sheegi karin oo la oran karin war deegaankaasi waa deegaan oo dhulbaanta leeyahay laakiin dadka Soomaaliyeed aad dhexdooda kaga ololeystaan sool sanaag iyo cayn waa la haystaa war dadkii la haba waxa weeyaan laba ka mid yihiin mid abar jeclaa gaar u leh waa caynaba mid kalena way inoo kala baran tahay waa bohol hadaba aad u eeg si qurux badan oo fiirso
maxaa la yidhaahdayey midna faqashini baa kula degan oo waa laasacaanood ereyadeeda adeeg midna maxaa la yidhahdayey adaa keligaa degan okay marka aad arkayso inaad borobagando aan soconaynin aad dadka ka iibinayso guleedo aad baad u mahadsantahay inaad aad dadka ka iibinayso horta waa faankii awowyadaa ay 100 qarni ka hor ahaayeen haddii daaroodnimo baawar leedahay maanta somaliland oo aad necab tahay maad hoos joogtid kumanaad qasbanaateen in lagu yidhaahdo 4 xildhibaan ka qaada dhinac kale ha u dhaqaaqay haddii daaroodnimo ay wax tarayso ma jeerteen bay xaggan kaa xiga oo kaad ku faanaysaa boqor hebel aad leedahay laakiin dantaa waxay kugu tidhi ma jeerteen ha u tegin ee halkaa fadhi isagoo walaalkaana aad ku sheegayso waaya haddii daaroodnimo ay awood ku samaynayso maad soo fadhiisateen halkan oo inaan soomaali kuguma dacaayadeeyeen war dhulbaanta xornimaha helo adeeg hadday qalbiga ka tahay iyo haddii ay dacaayad ka tahayba inaan soomaaliya ma yidhaahdeen war free war ciddaasi cid bay haysataaye sidaasayna aqoonsi u helaynin markaa walaal anigu horta waxaan ninka dhulbaanta idhaahdaa markaan la talinayo ciise wax yarkoo isugin adeer asxaabta oo caytamayaan muudka geliyaha bloggaraynina laakiin muudka geliya intaasaa idinka codsanaya dhima lahaa dadku aragtidoodii leeyihin marka almuhim hadalka waxaan kuugu soo koobaya walaalo soomaaliya waxay soo martay marxalad dheer xornima goboladan loo wada raadiyey xornimada waxa ka shaqaynaya waxaa cabdilaahi ciise oo koonfur xornimadeedii ka shaqaynayay oo isagu halgamaa ka ahaa waqooyi 3 xisbi baa ka jiray mid waxaa hogaaminaysay samaroon oo wuxuu ahaa ugaaskii guud ee samaroon labana waxaa hogaaminayay isaaq oo midna michael baa watay midna maxamed xaaji ibraahim cigaal baa watay taariikh aad ku leedahayna ma jirin adigu ee qofka xornimadiisa loo doodayo ayaad ahayd haddii aan taa kuu soo dhaafo halgana fara badan baa la soo galay oo la mid ahaa kii sayidku uu galay sheekh bashiir halgan ciise xirisu SJ dadka aflagaadaynaya please blog caadi forever ay hal galiye gabadheena SJ ku dadka caynaya forever blog galiya siman iyo nuur dadka SJ waa hadday cayn xitaa moderate iska dheh laakiin caadi weeye qofka ما يفلقادو dumarnimada la cayn laakiin daliisha waa caadi laakiin yaan la cayn oo isirkeedii naftidiinta la cayn laakiin wax hadda oo dhibaho wiil ma jirte moderate hal dadka macaamiil way dhegeysanayaan blog yaan la dhihin okay aan hadalkayga dhamaysto markay xawli halkaa marayso walaal dadna ay kuwa kale yihiin umalayn maayo raggii hore waxay odhan jireen horta hebel kaftanku waa ka xidhmay ama uu xujoobay bay odhan jireen goorta uu dhulbaanta xujoosmayaan garan waaya anigu ama uu kaftanku uu ka xidhmayo iyadoo soomaaliya ay arkaysa haddana adayg in lala soo istaago waxbaanu nahay taariikh baanu leenahay walaalo iyo reer baanu ka tirsannahay awooddoodiina reerkiina uu waxba u tari waayey maxaa la iyagiina ay taariikh iyo raganimo kale ay samaysan kari waayeen oo aan ahayn afka anigu xilligan marxalad ku jiray meel aan diidanahay inaan ka dagaalamayo oo aanan ogolayn in laygu soo hadal qaado anoo 20 inana baan ku bilaabay inaan qori qaato dabeeta maanta taa aan dhinaca kale ugu qalibay wax allaaliya wixii yaalay ayaan ku gaadhay adiguna social media iyo waxa weeyaan TikTok laga dhex qayliyo waxaad moodaysaa in halgan dad xoreynaya uu yahay laakiin waa nasiib darro in dadkii aad islahayd wax tar aad dadkii un ku dirayso waxna aanad u qaban karaynin waaya aan waxaasoo dhan dhaafo waxaan kuugu soo gabagabaynayaa ama aan ku yaro tusayaa bal wax yar dardaaranadii awowyaday ay idin siin jireen inaan bal hadda ku yaro tuso oo ku idhaahdo warniyahow ishubso bal horta qofka aad tahay marka koowaad waxaa salaan carabay baa wuxuu yidhi salaan carabay hadda baleeg haddaad ficil hinaansaday waa ogaadeen iyo dhulbahanto iyagu isku markii hore masmasayray oo midna yidhi war deegaankeenii waxaa qaatay habar yoonise maxaynu samaynaa hadda baleeg markuu cali dhuuxu lahaa adiguba waxa weye darkii caynabaa daris ku taallaa oo qamaan bulxan ugu jawaabayay cali dhuuxna uu lahaa maxaa leedahay ogaadeen doqonkii ogaadeen adoole laga qaad waa taariikho kaftanoo soo dhacay waaya salaan iyagoo labadoodaba isagoo caqli celinaya wuxuu ku yidhi halkaasay ka muuqataa waxaan maantana idin leeyahay shalayna wixii awooyaday ay idin leeyihiin inay tahay wuxuu yidhi iyagaa hiraabta iyo kalaha hiirta waa beriye haddaad ficil hinaasiday asaad hiilin kari weyday ma af baad ku ciilbixi cidlaad ka anjabaysaa marka haddii af lagu ciilbaxayo af ciilbaxnimadu dee taariikhda soomaalida dadku kala leh qalinka iyo qoriga markay noqotona dadku kala leh oo mid waliba nin walba miisaankiisa waa is ogyahay inta uu qaado haddaan taa dhaafo afkaaga waxaan ka maqlayay degmooyinkii aanu qaadnay ayaan afkaaga ka maqlayay welina ma maqal reer daaroodaba reer kale hogaan ka qaaday degmo
haddaan ka soo bilaabo iminka tii u daahir kuu sheegayay ilaa Hobyo ilaa Xaradheere ilaa Ceelbuur ilaa waa dhulkii ma jeerteen dhammaantiiba maantana reeraa kala haysta haddaan xaggan ka bilaabo Lafaruug ilaa iyo Hargeysa ilaa Daarood Kuxaar ilaa Gaashaamo ilaa Caynabo dhammaantood waa dhulkii daarood maantana reero kala haysta nasiib daraduse waa inaad idinku weli isleedihiin idinkaa wax qaada waxna la idinkama qaadin taasaa nasiib daraa waxaa qofku xitaa haddii uu dadaalo oo dhaco laakiin aanu odhanin war waad dhacdee sidaad u dadaali kartaa maanta ood halkii uga soo kici kartaa dee qof jiraanu ahayno isma oga halka uu yahay iyo waxa uu ku sugan yahay laakiin keliya wuxuu og yahay inuu faani karo hadli karo waxna odhan karo haddii arrintu ay noqoto afkaaf furanna dee nin waliba wax waa iska sheeganaya hadal waxaan kaaga baxay walaal haddii xisbiyadii Soomaali xoreeyay aad mid ku lahayd noo sheeg saddexdaa aan kuu sheegay saddexdii afartiiba waa ku alla saddexdii waqooyi ka jiray iyo kii SWL Cabdilaahi Ciise hogaaminayay adigu waxba kuma hadlayn haddii ay halgan noqotona rag u dhigmaa Sheekh Bashiir Faarax Omar maxaa la yiraahdaa Xasan Barsame ama Xaaji Xasan Barsame oo nin gaal jecel ah hawiye ah maxaa la yiraahdaa koonfur oo dhan kaliya ka dagaalamay rag u dhigma keen aan ahayn sayid baan la soo taaganay جبت جايزه الفاضل ابو ويدا قولت بافليا قولت باكل لبدينا قولت تاكل aad ma santa waxaad samaynaysaa daahir wixii hadda ka dambeeya wixii hadda ka dambeeya waqti baad noo qabanaysaa wixii hadda ka dambeeya waqti waxaad tiri dhulbahante iyo daarood dhul qaaday baad ka sheekaysay ogaadeen maanta today ogaadeen dhulkan uu maanta degan yahay ogaadeen kadaan dowlad soo gudub ogaadeen maanta dhulkan uu degan yahay iyo dhulkan uu maanta haysto iyo dhulkan uu maanta ka taliyo qofka uu ka qaaday uu ku talinaya ee today xitaa intuu kulaayay 2016 intuu maydka 2000 waxaan leeyahay iyo 13 intuu maydkaaga waray meeshii loo oran jiray waxa weeye Ali Jaamac intuu maydkaaga waray dhaawacaagina aad damacdayna Hargeysa u qaadato ku diiday dhaawacana Hargeysa u qaadato horta ogaadeen waa ka ogaadeen ka wada hadlameen waxaad ku soo xisbiyada baad ka hadashay xisbiyadii anigu su'aal baan ku weydiiyay waxaad ka hadashay Axmed Gurey doodaadu ab bay sujuuraysaa su'aalahiina kama jawaab Axmed Gurey horta isagu nin daarooda buu nin gari koomba buu ahaa nin gari koombe kabla laxdaarood Ismaaciil buu ahaa ma ku fahani garaysid Axmed Gurey anigu waxaan ku iri war maxaad sandalan lahayd Ingiriiska ka hor haddii aan u soo laabto waqooyiga iyo koonfurta dalkan dooroweynuhu markuu soo degay dalkan dooroweynuhu markuu soo degay anu dooroweynan u aqaanaa adiguna dhalad bad u taqaanaa Ingiriis dhaladkiyow waan ku dhalolay xagaan kala dhunkanaa bad u taqaanaa ana dooroweynan u aqaanaa markuu soo degay wixii ka horeeyay dalkan Soomaaliya dad iska xoolo dhaqataa waan siyaasad aqoon oo aan waxba iska beera falata qaybna beera falatay qayb kalluumaysatada qaybna waxa weeyaan geel iyo ari dhaqato bay ahaayeen dalkan markuu soo degay dooroweynuhu waqooyiga Soomaaliya adigu isla markiiba heshiis baad la gashay heshiiskaad adiga Ingiriisku wada gashayna wuxuu ahaa in dhulbahante dhulka la idin kala dhiciyo maadaama dhulbahante markaas waxa weeye ahaa ninkii dhulka idin ku gumaysanayay ee idin haystay sagaarada magteeda idin ka qaadayay ee waxa weeye sidii la rabay idin ka yeelay markii aad heshiiska wada gasheen wixii inta ka dambeeyay gobolka waqooyi galbeed iyo gobolka waxa weeye maxaa la yeeshay Togdheer ayaa waqooyiga Soomaaliya ka jiray gobolka Togdheer 90% dhulbahanta deganaa waxaana gudoomiye ka ahaa dhulbahanta ina buryar baa gudoomiye ka ahaa anigu marka Ingiriiska dagaal baa kula jiro aniga goboladaas iyo ma xisaabsan sababtoo maadaama Ingiriiska dagaal kula jiro anigu nin marka hubaysan oo hubkiisa sita oo warankiisa iyo gaashaankiisa sita oo waxa weeye u darortay jilibka sidoo isaga dhicin lahaa dooroweynaha dalkan uga saari lahaa baan ahaa anigu halka adigu duuda xamaalka waxa weeye dulliga qaayibay aad waqtiga aad ahayd waxa weeye garbahana dhigtay taasaan kaaga soo gudbaya waxaan u soo gudbayaa tan xisbiyadii qorigii ninkii ku dagaalamay anu waxa qalankii ma kula soo gudbaya qalankii xisbiga kaliya ee waxa weeye waxa inkastoo ay samaroon iyo dhulbahanta ku midaysnaayeen garaal cali oo gudoomiyaha ka ahaa ninkii qalinka ku soo dhiciyay baan ahaa koonfurta Soomaaliya markaan u soo laabano koonfurta Soomaaliya waa la isku qaadaa bari iyo koonfur bay kala yihiin bari iyo koonfurta marka la yiraahdo inta jubooyinka xoog baan ku qaadnaa qasab baan ku qaadnay jubooyinka cid ka hadli karaysa ma jirto jubooyinka wixii dooroweynaha ka horeeyay minority baan ku ahay laakiin today majority baan ku ahay ween la isweydiiyay xaqan ka keena
وأود يباوران استعمالي bariga Soomaaliyana ma jirteeniya ka jirtay laba suldaan oo waxa weeye boqor iyo suldaan isdiiday baana kala dhaqaaqay intay dabkoodii kala qaateen ayaa daahir cali isagoon maanta in hor fadhiya awoowayaashii hoobiye lagu gumeynayay oo la laalaadinayo la sit adiga su'aasha biyam kama dhicbaanka ee aan ku weydiinaya ee aad ka leexleexanaysaa waxa ay tahay dirnimadan aad maanta ku ordayso waxa ay adiga ku jartay waa kow seedirnimada aan maanta haysato maxaad Soomaaliya kaga noqotay madaxweyne ma ka noqotay wali ma ka noqotay power ma ku yeelatay ogaadeen iyo maanta maxaad ka haysaa waqooyiga Soomaaliya oo burciya Hargeysa ku waxaan kale ka maqlay gobolka Sool war gobolka Sool dadka uu kula yaqaan daar cusub kula garanaya isba dadku kula yaqaan gobolka Sool waa afarta degmo saddex dhulbaanta degmo midna waa Caynabo adaa degmo أنا قبل كتوك دير بان دقمدا لبادي ugu weyn ka tagayo buu Holland ka taga waa la isu tuuraya ta tuuladana adii sheegtay waligeeba ma maqal waa xudun iyo taleex iyo waxa weeye Caynaba iyo laascaanood waa afarta degmo saddexana degmo ana qobol kutub dheer baa su'aashan ku weydiinaya waxay tahay maxay adiga maanta ku jartay dirnimadu xageesa wax kaga tahay maxay se wax kuugu tari weydi sacaawa waxa ku tarto sida aniga daaradnimada iyo dhiig u shaqeynaya caawa halka tolkay ii garab tagay ama asanta thank you gabadha thank you inaad dhamaysatay waan maleynaya thank you aad baan maasanta salaam baan arku sar cadow jibsan ku aqaana walle inaad dhamaysatay baan u maleynayaa marka waqtigii baan filaya ma yada waa daahir baa iga qabtay Soomaa waqtigu waa ku dhamaaday waqti ma ku dhamaan ay soo koob halkaaga اوكي شرط انت خدت سنه دبر هذا السوق يا داير والله ku dhamaatay de bifadan way gabadhu ma ceel baa ku dhahay SJ inaad aad bad ma santahay love you bio love you inaad wallahi aad bad ma sant lander okay laakiin mid baan ku ogaa hadhow lacagta lama bixi karay sida waa coins meesha lagu qoray una okay ashekada sii gala bay ashekada sii gala gabadha loo hadlay horta su'aalahan ku weydiiyay ii bilaabo waqtiga laba man ka qaadanaya imika waa hale su'aalahan ku weydiiyay horta walaalka ma jawaabin nasiib darro xisbiyan ku weydiiyay waxaan ku weydiiyay qofka deegaanka laga qaadi jiray taariikhtu taariikh waxa weeye magaalooyin aan ku magacaabay dhinac walba leh reer kasto Soomaaliyeed uu iska ka dirsanayo barka qaadanayay adigu waxa ma sheegin waxaad qaaday laakiin waxaad afka uun ka leedahay waxbaan qaaday waxba taasna waa mid waxa weeye mid waxa weeye waxaan ku wada halkaas inuu noo sheego degmooyinka meesha uu qaaday anigu deegaanadii midmid baan ugu dul istaagaya waxa weeyaan Caynaba isaga reerkiisa laga qaaday ceelaf weyn isaga reerkiisa laga qaaday maxaa la yiraahdaa marka beelka laba ka tago ceel dhaab isaga reerkiisa laga qaaday maxaa la yiraahdaa balidiin isaga reerkiisa laga qaaday ilaa burcaagteeda la firru maxaa la yiraahdaa ilaa doollo ilaa iyo gaashaamo ilaa daarood ku xaar intaasba waxa arkaysaan xilligaana awowyadii waxay ka muuqataa murtida ay iyagu tirinayeen ay murtida iyagu tirinayeen ay isku canaananayeen bay ka muuqataa waatan muxuu yidhi waa qamaan cali wuxuu hadlaya wuxuu yidhi dhankan ka hadlay waa kaa qamaan dhaafay hadalkii dhixirka hay iska gooyaan lahaa dhuugga loo talay haddii dhexe adowga iyo daarshid baa jire naagahan dhankii loo rogay dhinacna diidayne dhadigooshaha lagu arkay dhiigga caadade haddayna dhiilka caanaha lahayn laguma dhaateene wax ka dhigan goobtii dhowrsateen ceeb ka dhiidhiin wax ka dhigan goobtii dhowrsateen ceeb ka dhiidhiin wuxuu ku masaalay heer uu dumar ku sheegay buu ku masaalay aad baan uga xumahay laakiin waa waxa idinku isku masaalayseen aad baan uga xumaa mar kale awowgaa markii su'aalay xujooyin la hordhigay la yidhi war kaftankii waa kaa xidhmay la yidhi waa cali dhuux aadan isagoo ka calaacalaya wixii kaga dhacay deegaanadiisii waa kii isaguna lahaa aniga iyo hablaha loo galmoon waa gudboonnahay hadda bale aniga iyo hablaha loo galmoon waa gudboonnahay waa ereyadii ugu hoosay adiguna waxaad ii sheegaysaa nin aanu cadow nahay oo xabad inaga dhaxaysay
erey uu afka isagu ka tuuray oo yidhi haween baan idinku xusay nin isagu afkiisa isku sheegay oo yidhi anaaba haweeno aniga iyo dumarku isku mid baanuna iyo nin cadowgiisii ku sheegayna dee heerka ay kala taagan yihiin waa waxa weeye dadka Soomaaliyeed qofkii arkaaba uu garanayo waaya aan ku sii socday qamaan bulxan markii dhulkoodii iyo dhinac walba deegaanadoodii waxa weeye la kororsaday ee lagala wareegay waa kan amaano halka igu qabo anigu moogtahay waraba inay beri yidhahdaan moogtahay laba nin oo Soomaaliha ninkii la doodo xalay fushuuqsata moogtahay darwiish aniga waxaan ka dhexdhexaad baasha dooda waxaan rabaa wax qurux badan darwiish waxaan rabaa inuu ka jawaabo inta hadalka ugu dheeraan su'aashii koowaad oo ah wali ma dhamaysana daayro inta yar ma dhameeyo horta xagee jawaabo qodobkaas dadka isu kugu caajiso qodobkii ah xagee qabsateen ka jawaab walaa qolka gifti ku dilay gabadha faadlo saad gifti ha lagu garaaco so ma darwiish ba jawaabaya mise waan dhamaystaa darwiish aan jawaabaya meelaha uu qabsada ha sheego meel laga qabsado loo sheegay magacyadooda marka hadalkiisa muu ku soo soconaya mise uu dhamaystay marka hadalkiisa wali meelaha qabsada waxaa ka mid ah Waliya Xasan baa ka mid ah Bilad Dayaa ka mid ah Hiraa ka mid ah today maanta Hiraa ka mid ah Gocon Daala ka mid ah dhulkan maanta dhulbaanta wada degan yahay dhan baa ka mid ah waana dhulku awowgii ninka habar awal markuu habar jecel soo gabiyay ku lahaa dawdawlayaashii burcaa dhaxal wadaagtaan wali wuxuu dhahaa buurihii wali 5 maalmeedan dhaafin buuraha dhex joogteen halkii la idinku dhalay baa dhinac la haystaa waa jees dhul baahantaa waxaad uga dhaqaaqday dhulkan maanta deganahay oo dhan anigu bari waan ku dhashay dhulkan maanta deganahay oo dhan waxaan ka qaaday habar jecel iyo arab baan ka qaaday intii ka dambaysay dhulkaana waxaan sii qaaday Gocon Daale Biladaye meesha jiray waxa weeye Hire Baliya Xasan Kaabadle waa dhulkan maanta degan yahay ii magaalaysan iyo waxa weeye gaadaalayaal intabana gabayaan ka tirinaya si daa dhamaystay hay ka soo kusay waxyar isbiiso ilmaada yaar oo like noo saaraya like saara si videoga horta inanku wax deegaan oo Soomaali garanaysa inuu ma sheegin anigu waan iska oran karayaa iminka waxaanu qaadnay gobolka Cabdigaab ka Cabdi Dheere kii dhulbaanta laga eriyaday maxaa leeyahay cali magacyo la iska tiri karaya laakiin wax deegaan oo inanku ilaa hadda inoo sheegay dadka Soomaaliyeed way maqlayaan idana way wada maqlaynaa waxaanina waa wax wada cad weeye marka had iyo jeer la doonayo in la doodo وين ميلا يوحل إسلا جرانيا يرول يدقموين يتاريخ واحد لا ذهي وحوي اللي جدوده واي أنا وحن كيرتو صياب الأولوية دي دجانا ده وحي كجعل عليين دجا ما كستوى مركل قاعدة نكاني وسوسلها يمك وشيء أضايق وعيري نما يهودل كيني هلو أنا هردانه هو عبت وايدين هلابي هجوكتينا تيري حاجة هيا تكون بالنيدين أنا أم هيا إذا جرى هبر من ريح داني ميدان هم بابورين مدة هبع سنة يدين هنتي مقارنك لقى هيا وهبية أما هورجل يوير بكوين دي سودا منكم هجاكتان واضح هلا مرانتان هذا بلاقة بملا كم هجاكتان واضح هلا مرانتان ور أما هورا نفتني ويه هذا هي سل جوا أما هينا ده نقال ركبة وجه هجاكتيني ورنقالي واحد وأذيركي لك على كان كسي دينا يا ماشا إذا كان قرية ضمان دقموينك عينبا وأوجيدين أو ده ورلوك كل يلا يسلق رسني إلا ما أنت تاريخ دينا للي لباتن شركة دول ساق iyo 60 jirka dhulbaante caynaba kuma heshiiyeen hada balag wuxuu yiri cadaynteeday leedahayo waa degmada weyn ee maanta inta leeg iyo oo ka hadlayana waa kan wuxuu yiri sidii oday malugada bartiya moorada iyo faalka balaan mariya maasada anay kuma jirtaan maskan iyo cagaar habar jeclo mooye tumanaysa oo midhaha geedkiisa ka badan maadha iyo caarka masaakiin la dhaca weydinkii mooday reeraha maraq lagu gubtiyay bay noqdeen muriya waabay muusiyo qudeer uga aroor moolkii reer hagar imkay ku meelmeelayaan maala iyo laase maada kama helaan inamadii magaca weynaaya madax gaala iyo toon magan xawaalkiisa maantadu haraad sama tarow way ku marataay madaxudii deena military cadhooda laf buu malaw ka siiyay maroodiga soo jeesigan maara loo heline milyan lagu dhintiyo bay dhigeen ceelkii marinka iyo rag haduuse magliga soo rogo kala maqnaan waayo muslim
muslin iyo kufriba waa inuu maalin diriraaye iminkan musqara loo dayeen meelna jiifsaday muddo aan yarayn baa nugaal muran ka taagnaa oo qoloba ay qolo maaganeed inay maquunshaane allayle isaaq baa mulkiyey maaxdi caynaba hadaba le Larissa, thank you boowe aada u mahadsante thank you adii walaashay aad SJ iyo thank you dhammaan marka muhiimaddu markaa waxa weeye qofka horta waxa uu ku doodaya ee hadhowna odhan doono qofka kalaa been igula dooday waa inuu garto dadkuna ay gartaan doodaada bointigeeda iyo dhulka aad sheeganayso iyo waxaad sheeganayso waa inay dadku si wacan u gartaan taa markaynu dhaafno siyaasiyan 3 dowladood bay dirku ka taliyaan hadaba lis aad u fahan 3 dowladood oo power laba dirku ka taliyaan waa Djibouti hadaba kow waa Somaliland waa labo waa ismaamulka dhan ee Ethiopia magaalo madaxdeedii labaad ku taal ee Diradhaba hadaba dhageyso saddexdaba cidina kuma taraxdo waana ka taliyaan dhulka kale Soomaalidu degtana way la qaybsadaan mid walba hadaynu tagno kililka Soomaali galbeed ama kilil 5 wa half and half أنا deegaanka kaaga badan xildhibaano iyo maxay leedahay matalaad baad waxaana ku cadaynayaba cagtaro ka hadlaya ayaad dhageysan kartaa oo kule shanta golaha sare la qaybsado ama shanta nin ay ugu sareeyay la qaybsado waa maxkamadda sare nin isaaqaba haysta waa madaxweyne ku xigeenka nin ciisaaba haysta waa gudoomiyaha baarlamaanka nin garaaba haysta adeeg adigu waxaan madaxweyne baranoona ka ahayn oo aad meesha leedahay ma jirto maalin Oromo ay tuurto maalin soo qaadato iyo xabash waaya deegaanka waxa soo haray Soomaaliya tira siman baynu ku leenahay saas oo ay tahay waa 63 xildhibaan 61 xildhibaan 60 iyo intaas oo xildhibaan wax xildhibaanna seema 4.5 lagu qaybsado oo dir iyo daarood iyo hawiye midna aanu ka kale waxba dheerayn horta doodi waa tan noocaas weey hadii reerkaagu wax dheer uu haysto Soomaaliya oo Muqdisho marna lagu leeyahay war inan baa idin keentay maydaan lahayn meeshan iskaga guure war aad adigi ku faarayso faan ka dhiganayso de waa mid musqaala daratin dadku ay soo caan u arkayaan laakiin ay doodu jaban tahay waxaan kuugu soo gabagabeynayaa walaal noo sheeg hal caasimadood oo caasimadihii dhulka Soomaalida ee xoroobay aad ku leedahay waa kow noo sheeg saddexda dawladood ee waxa way halka lagu dhigay saddex lamida ama dawladaba wax lagu sheego oo aad oran karto daarood baa gaar u leh halkaas ay yaalaan hadii kalena power ma lihi noqir oo waxaad tiraahdaa war waxa aad leediin wax u dhigma ma lihi waana maatintii waayahay saad aniga iga soo dhex gashay aad su'aalaha i weydiisay baad isagana su'aalahayga maadaama uu ka meermeerayo daahir weydiinaysa bointiga laakiin waxa ina soo hadlayo kow labo ay tiraahdaa su'aalahayga waa soo gabagabeynayaa su'aalahayga marka soo gabagabeynaya maad ayaan su'aalaha keenaya goobta laakiin sameeyka qaadin buu ka jawaabaya adana weydiinaya wuxuu horta iridaha gaba islaano baryahan iguma oodnayna axdi baan ka maray idina waad igu ogadayna aflagaadadiisa necbahay iyo aafa godoobede anigiyo idoorna waa is aragnaacaynaaye ajashoon ka gooyiyo waxaan ka ijtihaadayo ajri baan ka dayayaa sidii ubadkii reer cad abaaban duulaan reer isaaq waa u abtirayaane ilmadiid ma fiicnee tolkay ma isku wada dubay laba aadan iyo nuur iyo ayuub irinka ma u dhibnay ammaanduulihii maxamed gool ubaxa ma u saarnay ma oriyey oogii ma shiday mana u eedaamay ilaaladii ma loo diray halkii lagu astaynaya intayadii tab iyo xoog lahayd orad ma guurni kuman uguba kuman uur leh iyo wuxuu kuman uguba kuman uurliyo kuman irmaanguuna iyo kuman ilweyntiyo duqiya aaranka yaqaan iyo kuman abaartii dhalo ubadka loo maalo iyo kuman intay igar yihiin laga unungooye iyo kuman abaareeya oo awrta la ciyaarta iyo aragsanow baarqabkii ayra lagu qooqsho intaasoo kuna wada aynayaan ku eriyey qayrkiisi hadday itaalkeed hayaan naguma eegteena idoorku wa'kii sidii tukaha ugu agmeerayay awalada waatay lahayd unay kamaanoys buuri waxaa geela aanaysan jiray ubaxa daarood insha allahu intii ka hadhayna waa soo ururi doonaa waaya horta gabaygana tirinaya waa geeli ugu badnaa ee la kala qaado geeli laga qaaday waxaana ka qaaday reer kale kama qaado علي يا هارون خير لي والله وبالله وعلي هارون قالي ugu badna ee la kala qad mid kale su'aasha aan weydiinaya waxay tahay ninka dhow tole aad weydiinaysaa ma socon karaysaa gabay awsan daarood lahayn adoon soo qaadan wax awowgaa yiri ma ku baani karaysaa sidaydoo kale ma ku baanaysaa sidaydoo kale waxaan sida halkan ugu baanayo kuman uguba kuman uur leh iyo kuman irmaaguuna iyo kuman
ilweyntiyo duqiyo aaranka yaqaan iyo kuman abaartii dhalo ubadka loo maalo iyo kuman intay igar yihiin laga unongoye iyo kuman abaar iyo awrta la ciyaarta iyo aragsan oo baarqabkii ayna laga qogshay sidaan kor ugu baani karaysaa waa kow su'aasha wadi weydiinaysaa waa yahay su'aalahayga dambana waa ku dari doonaa laakiin markaan ka baxad weydiin doontaa si sadaqii kala go'daaro waxaad ka hadashay gabaygii uu yowla soo qaatay deegaanada la qaaday baa tilma garanay daahir cali soo markaad ka baxdo khadkood ku qori karaysaa biladaye baliya xasan kaabadle waxa weeye hire go'aale intaba biladaye haye biladaye ku qoraysaa inta ku yaala gobolka Solmiya waa gobolka doolo biladaye doolo waxaad ku qoraysaa horafadhi waayahay waa inta biladaya yada waxa weeye waa dowlad deegaanka laga yaabo inay waa dowlad deegaanku meel inta badan waa iska garanaysaa ateenada hadda loo sii daayo ateenada waxa loo sii daayo in ka dambeeyay waayahay taanu ka soo gudubno muxuu mar kale beesha iyo duraaye iyo halka iyo duudi nabi aadan dilalkii maanta dhacay waa mid aan daa'in sheegin ragga dadabta lagu gowracay dunidu waa kow dayaxa dhacay shamsada duugantay ee dacal madoobaaday iyo reeraha diiqada noqday ee doorkii laga laayay diracyada agoomoobay iyo dumarka ooyaya aqalada dabayshanaya ee daahi laga gooyay daloobta naagaha xidhiyo duubka cad iyo weerka duntigiisaba reer muuse waa u daawo oomana miyaana ina ducaalow nugaal raggii lagu jaray daniba ka ahayn waa nugaashu ka hadlay waxayga sugaan ba ku sheeganaya Soomaali ma hayaano waa nugaashu sheegay miyaan ina ducaalow raggii lagu jaray ducaalow nugaal raggii lagu jaray daniba ka ahayn Axmed Faarax Doonyi iyo Xarrage duuba oo dhigay aw nuur halkii lagu daldelay kama dareereena dilkii xaaji Muuse geedhi isaaq diday gogosh waa nugaashu ka hadlayo nugaal anigu af Soomaali ma hayo nugaal halkaas kaga baxay yani ducaalow raggii nugaal lagu jaray daniba ka ahayn waxa uu soo Sheikh Bashiir bad soo qaatay war Sheikh Bashiir ninkii kaliya ee isaaq ahaa ee diiday gumaysigii Ingiriiska buu ahaa habar jecel ka dhashay maxaa ku dhacay miyaa la daldelin hortaada miyaa lagu daldelin miyaa la gowracin miyaa laga tirin gabaygii ahaa duhar cad baa lagu shanaaday Sheikh Bashiir duhar cad baa daar agtiina lagu shanaaday oo la gowracin oo waxa weeye cid dumarkii carruurtina intii la soo ururiyay aan la oran meydkiisa jaandheer ka dul qabsada Sheikh Bashiir kaad ii sheegaysaa ma Sheikh Bashiir bad meesha ku haysaa taa markaynu ka soo gudubno guntay markaan soo laabto hadalla waxa weeye meesha aan soo laabto dirtan iyo waxnu ka sheegay thank you waxaan soo qaatay gabayadii awooyaashii taariikhda duuga haddaan dib uga faalloodo diiwaanka waxa kugu taala waa dir baan nahay maantana duriyad baad nahaa nugula doodeen ilaaha badul noo sheegataan waa dayuusnimaadoo aabaha didi baa dooni ruux kale duqii idin dhalaan meel cilaa kaga dareerteen taa mid lamid ah oo awowgii tiriye ma haya uu leeyahay daarood ma wada dhalan waa kow taana waad ii weydiinaysaa waxaad ii weydiinaysaa ma jiraa gabay awgaa leeyahay oo aad u bambardhigaysaa gabayga awgay ku beeninaya in wax dir la yihahdaa jirin waa soo fiirsaa gubaad gashay waqtiga laakiin ma la ilaalinaya 5 daqiiqo ay socota oo ilaalinaya sukay حتى كمان فينالكي la socda hadii la hadda waxaan ka hayaa wuxuu yiri gabay adoo ku halqabsin daarood ma jira su'aasha horuhay haddana no gabaygu xasaash waxa weeye awowgay wuxuu ku yiri dir mati gabay banu ka tiri wuxuu ku yiri awowgay wuxuu ku yiri gabaygu kii hore ka hadlay tan waa laba ka haya soo labadaas ha mid waxa weeye ma socon karaysaa anigu hadda ninka qura saddex hadda qura 3 saac baynu fadhiyeena daahirow gabayada awowga ku baan waa ku baanaya thank you استي نادرات ما سنتي نادرتي الله يخليك iyo ninkii saddex saac hataa ninkan waa fadhiyana saddex saac inaan ochi boy landera dhalay ogaadeen absame waa Soomaali markii leeyahay qayb weeye ogaadeen mid baan ku sheegaya su'aash saddex saac halkaas haddaan fadhiyo saddex saac baan bartaa fadhinaya saddexdaas saac ee aan fadhiyo gabayaan ku hadlaya gabayadaasna awooyaashee baa la gabay ninka leeyahay soo qaadan maayo weliba wada kablan laxban soo wada qadan daarood kale xitaa u tagi maayo isagu ma ku dhacaa saddexdaas saac isagoon gabay daarood soo qaadan inuu gabayda awow ku baano waa kow waa labo ma haysaa gabay u dhigmaa sida awowgay kuu beeninayo inaan wax dir la yadaa jirin
adoo aabaha diidi baa dooni ruux kale taariikhda duuga haddaan dib uga faallado diiwaanka waxa kugu taalo waa dir baan nahay maantana duriyad baad nahaan nagula doodan inaa hadba dul noo sheegataan waa duyusnimo adoo aabaha diidi baa dooni ruux kale gabayga mid lamida oo awiyaasha leeyihiin daarooda mida wada dhalisaasoo kalena ma haysa oo ogaa leeyahay waa labo waa gubaa haddaba kusoo xidhaya gubu ka hadla guba awowgii muxuu lahaa markuu cali cali awowgii muxuu lahaa markuu cali cali wuxuu lahaa awowgii markuu cali cali isagoo dhulbahante la hadlaya horta cali dhuux aadan gabayga waxaa soo furay cali dhuux aadan qamaan bulxan uu garnaqsada wuxuu la garnaqsaday cali dhuux aadan in adeerkiya wuxuu leeyahay war dadkan yaryara dugaaga hayga didin waa dugaag meesha soo degay hayga didin buu leeyahay xidid iyo sukoyaba waa leeyahay war dheer aan dagaal xuni ka dhicin dig iyo baarud ii kalidee war dheer dagaal laguma qabsanin wuxuu odhanayaa awowgii markuu gabayga soo gala maxamed fiin war maganiso tii gaabsatee aan gabay lahayn maaha inaa gam tiraahdaa rabo caliga raaxaaye naagtii gambada taabatee gacanta loo meedhay ee haddana gelisay meeshii sow gabaygu maaha buu odhanayaa awowgii muxuu ku calacalay mee kanaa kusoo xidhaya awowgii isaga muxuu ku calacalay isagoo dhulbahanta ka calacalay waa awowgii waa gube muxuu ka ahaa wuxuu guba ka calaalay awowgii wuxuu yidhi dalkayga markaa timi waa cali aadan dalkayga markaa timi cali aadan haddii laydin darajeeyey oo maxaa laygu darajeynayay oo dunya waa fududahee dadab laguu helay oo maxaad dabta laygu hela su-aasha idinka isweydiin doonaa oo dunya waa fududahee dadab laguu helay oo gabar daruur eeg aroos kugu dalaq siiyey maxaa laygu dalaq siinayay waa su-aal meesha taagan oo gabar daruur aroos kugu dalaq siiyey oo ku dabaaldegay qabiil daabad wada fuulay way saaqo dhan oo maxay igu dabaaldegeen oo dun iyo shaalki iyo hiinsaha laysku wada duubay maxaa laysugu wada duubay oo dumargu ay ku durbaantumeen dumar wixii joogay maxaa laygu durbaantumay haddaad guuto noo soo duntoo daacad u dhiibtay nafsi daalay baan kugu ogahaye balduuga hadhay aan dhowra buuri nafsigiise mana hela su-aalahaas dhan bood weydiinaysaa أنا كبار بالبانتا وانتو إسمي دمان تركي أدو ما ستين ما دريا أنت ضايرو أنا ساعتان وما لنا يا وقتي وطبعا وقتك كنا عينك صحيح صح ها ما وقتي وطبعا ضيقة ودافع بقى وكسر قاعد وأنا قبل كان الله بيلا تمام مرسى حاول سوق لكن ضايرو لكن سوق حيرته استقعد بالعوي أنا كنت بيني maxaan bilaabay war adinkaa bilaabay adaa bilaabay walaa ciise soo qabaad lahayd maanta halka anaa keeni dhimarta soco bal dadkan eega si qaylin waaya aan hadda hadalkayga bilowda eeg waa kow horta su-aalihii hore ee aan weydiiyey haddii ay noqoto tii xisbiyada siduu ugu dhacay waa arkayseen hadday noqoto tii deegaankana siduu ugu dhacay waa arkayseen hadday noqoto dhul la iska qaaday waxaygaa cadcad ee doollo iyo caynaba iyo mid waliba ay leedahay xeerka gaarka ah iyo xaqa gaarka ah wuxuu ku wareegaalaystay maanta oo meel aan la aqooninba totally cid allaala iyo cid garanaysaana aanay jirin horta yare sugaadar dee baa iga soo dhex gelin hadalka waxay carruurtani waxay gabaygu kaa xidhan waaya geel buu ka hadlay laakiin geelashii ugu badnaa reerka laga hayaa waa daarood waa hadday noqoto hagoogane waa hadday noqoto dhalma badane waa hadday noqoto tiraba 7 geel oo mid waliba gabayaadii ugu caansanaa ay ka gabiyeen ayaa laga hayaa waaya kitafiqi nin la yidhaahdo baa iska haysan jiray nugaal iyo ninkan reerkiisa iyo dhulkiisa oo dhanba waa intii aanay somalilantan iyo dowladahan iyo soomaali iyo waxaan oo dhaniba soo bixin kitafiqi waa kan isagoo geeloodii iyo raggoodiiba intuu isdul dhigay haddana ku dul geeraaraya baleega wuxuu yidhi inaan laayo mooye si kale waanan ledahayni barkadkii lakaaciga badnaa lahankii beenowya caligari lafuuf baa ka hadhay laydh siduu dhacaya baharar same waatuu ku lumay laqafkii dheeraaya ceel dhaabla labihii haddaan 6 ugu hoynayay caynaba haddaan 12 uga ladaab yeelay ari deyr haddaan 2 habeen laasim uga yeelay dabaldaya dadku kale laf weyne haddaan laayay hagar aadan 6 iyo leg mooye haddaan guluf ku leexeeyo sangal laqana mooye haddaan luga ku soo duulo lufankiina hadhay haddaan laasana u daayo lafta moose kama dhalan haddaan garanta kaa laabo haddaba leeg waa wixii uu xoolihiisa iyo geeliisa 24 hours sida uu doono iyo dhinaca uu doonaba ka dhigayay waad arkayseen inanku wuxuu ka caraarinayay calaacalkii adeeradii bal inaan soo qaato ka caraarinaya anuu ninka farta ay qoraya fahmayaan nin isaaqoo
walaalkii ku yiraahda maxaa la yiraahdaa doqorkii ogaadeen dawla laga qaad iyo adiguba darkii caynaba daris ku taala inta dhibaysaa waa inta weey laakiin gabayada awowgay waxaan ku socon karaa 2 saacadood iyo in ka badan baan kuwa awoogay ku socon karaa iyagoo dhammaantoodba libinka hadal midhana ee aan wax cala sidiinoo kale ahayn haddaba le aan wax yar ku tuso carab dheere nin la yidhaahdo oo ninkii lagu yidhi waa ismaaciil mire aan niman qabteen waxay ku yahaan ismaaciilow weligaa ninkii free ma aragtay baa lagu yidhi dabeete wuxuu yidhi war kaa carab dheere buwaagtana waa ku qorantay youtube-kana waa ka soo helaysaan meel walbana way taalla kaa carab dheere haddaanan ahayn anigu qof kale oo kibrey oo aan idhaahdo waa kibray garanaayo markaa ninka qabtay carab dheer u ahaa waaya gabayadana xilligaa laga tiriyay carab dheer wuxuu ahaa ninka dhulbaanta intuu isdhex maro markuu neef xoolaa uu leeyahay isagu ka dhinto xeradooda intuu gala kala soo baxay cidna aanay kala hadal adeeg isagoo le neefkayga dhintay baan kan u qaatay waaya waa kibreerku ka gaadhay wuxuu yidhi carab dheera geygani markuu kugu gumaynayay ee gobolka sool iyo nugaal gudaha laascaano gibirka iyo baadiya markuu geniga qaadayay garaadiya cuqaal talisay iyo odaya geed jooga garbaduub waatuu u xidhay gebi ahaantooda boqolaal intuu gowracuu saaray geedaha gardarada caddaanka intuu gabanadii laayay meydkooda waataa gubteen gacaladiinniiye dhereg kolkuu geela iyagu u go'o amase guudaanba bal waxaa eg dhereg kolkuu geela iyagu u go'o amase guudaanba magtiisoo gengiman weydinkii keenay golihii geel baa hal dhimatay baa hal kale xaq ahaan looga soo qaaday heerka ay gaadhay baasho giiryaalanimada waqingad u lahaydeena guyaal iyo guyaal tan iyo goor dheerba sidaan kugu gumayn jiray waad imaax garan eeg gunimadu maanta oo keliya maahay waa bahal aqaayibteen haddii dadku ay maanta free SSC iyo free dhulbaanta leeyihiin qarriya ka horna gabayaa lagu lahaa waaya ataana dhaafo waaya iska baddaa meel kale iyo dhinac kale oo loo dhaqaaqo iyaga dhexdoodu marka ay xaaladaha qiimaynayaan waxa weeyaan midba ka kale ayuu waxa weeye ku tuuraayo canaan iyo dagaal iyo kay ku noqoto cayba dhinacii loo rogayba waxa weeyaan ay ku noqotaa bal ilaahay baan idinku dhaariya waxaad ii soo sheegtaan reer Soomaaliyeed oo taariikhdeedu halkan gaadhay halkaa gabayna qalbiga kulli ka xanuunaya iska dhageystaan wuxuu yidhi iyagu baa isku qiraya waa markhaatiga isku furaan had iyo jeer gabayada badhkood maanan rabin gole kabaankooda wuxuunbaa gadaal iigu celinkaan guntoo xidhay sow guba inaan furo fa'aadima geeyeysiinin ha yeeshee gadaafaa dhaciyo goldariyo hooge waxa gobolla qaarkood ka dhacay gobi ma yeesheene geesigay ku dhaadani jireen geyiga daaroodba geeridii haliyaygii intii guunyo laga qaatay markii uu tolkii gaabsadee gilgilan waayey ii doorkan guuxada ku tuban golihii buuhoodle markaasay garwaaqsadeen inay gacanta dhiibteene gugii ina camila dilay caynabina guurtay gamba dumar sidii loogu xidhay guudkiiba u dabane hadday godobta jeerkaa gutaan tani ma gaadheen raggii xaajigii gowracee galab ku iidaystay maantana waxay gogol dhigteen galajabkii sool taariikhda guunka ah haddaan dib u gadaal raaco inkastuu godkii aakhiro iyo geeri nagu dhaafay cali aadankii gubaba furay iyo gabayga dheeraaday gadaashiina waatuu isagu soo ganaanaday ee yidhi gambaan xidhnahay iyo garnaagood gashantida sideedaan guur u sugaya aniga iyo hablaha loo galmaan waa gudboonahay dad heerkaa gaadhay nolosha ma jiraan xaasha gedi uu tilmaamuu tolkii galabta joogaayo guryaha dumay gabdhaha ooye iyo dumarkan geesaasay gabanada maatida la waday geedhka dhaxamaysan gabagabada sooltaal haddaan garasho qiimeeyo waxa gelinkan muuqdaa waa gabayadii dhuuxe gashaantida sideedii waxay guur u sugayeenba maantay arooskii galeen loo gurbaantumay reer dhan baa la leeyahay aroos bay galeen dabadlaya weliba wuxuu sii raaciyey guurtii baa la weydiisan jiray gabadh la doontaa reerkii gabadh la doontay buu kasoo qaaday guurtii baa la weydiisan jiray gabadh la doontaa gabaatigii caddaa loo qadimay waa cadda muuse gabaadigii caddaa loo qadimay iyo gunayntii gogashii islaan maxamed iyo geedkii reer boqorka oo boqorkii ma jeerteen inuu isaaqyaradka geeyu geediga u raray dee hadalku horta waa fool xumaanaya gabaygaasoo kale marka la qabsado laakiin xaqiiqadu waxa weeye makhraatiga aniga iyagaa ii fura makhraatiga qabsan kartaa gabay aad adeeraasha ku harqabsanin yaa uga jawaabtay weli waa kuu wadaya in adeer aad waqti dheer buu ninku qaatay waxay ahayd waqtigaygii inaan aniguna sidii ahaydwalaal yara sug dee hadalka yara sug bilaa caleg anigu ma soo dhex gelgelayn markaad qaylinaysay su-aalaha waa la weydiin doonaa horta antayda dhammaysto markaa kadib baa wixii su-aalaa aan diyaar u ahay waayo gabayga awowyaday sidan oo kale u baanaaneen ma calaacalaan horto dhegeyso waa kuwan wuxuu yidhi afrikaan iyo jaynaha aradka buux dhaafshay ama dowladaha aarmiga lehee layska eegayo ingiriis kolay ku tahay ma jiro nin igu aadaaya waxaan ahay iridaha reer isaaq ooda ugu weyn asalna waxaan u leeyahay niman la asaraarayn adeeg halkan kaga arooraa
waa ahlu beydkii adabalday wuxuu yidhi abidkii raggaan iska celinay ayran soo faafshay ee aan aabbihii u talin amase odaygiiba ee edeebsan waayaan rag waa layska urushaa hadeeg wuxuu yidhi aniga iyo islaamnimo kala agsoon wuxuu yidhi anigoon islaamnimo ka tegin eedna ku hadlaynin libintayda awlaadda haddaan ooda ka caddeeyo oo sidii shiikh addimay aan sare u eedaamo hadeeg oo sidii shiikh addimay aan sare u eedaamo ma waxbaan idiin dhimay haddaan nimaan ahay idiin sheego wuxuu yidhi adda sababa eerida xamar iyo awdal iyo saylac soomaali idilkeed waa laysku urushaaye afka maalintuu duulo walaa 20 ka badan buu qaatay inaan ku fadlan eega haddii aynu dee baasha waxa si kale u dhigayna loo yara sheeg su-aashu waxay ahayd warniyo wuxuu ku yidhi ninkaani dir baad marna noo sheegatay kugu gabihi marna wuxuu ku yidhi waxaad tiri duriyadii baan ahay martaqaana reer bini haashim halkeeba maad u haysaa uu yidhi gabay lamida oo looga jawaabo soo sax maaha saas darweesh gabay lamida iga gal waxa weeye gabay su'aasha faasi no su'aasha faasi wala wada hadashay gabay uu ku haya su'aashaadi waana fahansanay gabayga aniga ugu tiriyay ee aan kula tirmay ma haysaa gabay lamida oo yaasha tiriyeen oo ay leeyihiin daaradmooda dhalan aan ku sheego kow waxaad ka soo bilowdaa wuxuu yidhi ma jeerteen waa niman nasakhan aan ahayn midhaha daarood war horta yara sug war horta yara sug bilaa caleyk horta yara sug aan ku dhameeya 10 gabay oo mid walba daarood reerkaasi maaha la leeyahay baan kuu sheegaya bal adigu aqliyadaada gaagaaba ilaaha illa allah waxaa rasuul aan adeer horta aan mid idin sheego wixii daarood isku tiriyeen meesha soo gelinayn ka saar wixii daarood isku tiriyeen ka bax anaga isnidi adiga uga gabayga adeerka ku halqabsane horta keebaa xun ninka leedo daahirow ilaan wax kasta haddaan su-aal ka dhigno waa waaliye keebaa xun gabayga adigu aad isku qiraysay aad leedahay anigu waxaasaan ahay iyo gabayga nin aad dagaal idinka dhexeeya uu waxa weeye isagu ku leeyahay waxaasaa tahay keebaa xun waxaan hayaa 10 gabay ka badan oo 10 kaba lagu cadaynayo xitaa kuwana waxa lagu yiri abtirsiimadin waxay gashaa eeyda reer xamar war reer xamarka eeyda horta yarsi geesina waxa kamid ah haddii aysan jirin dir ama isaaq gabay ay tiriyeen oo daarood la saarayaan urbahanta ama jeesan daaroodnimada ana ku sheegay dhageyso waa kan yaraag waa kan wuxuu yidhi sabtii kaftan nala wadaagtay la sixi waayey iyo sarcii firgooyada lahaa kala si weeyaane ma simana sabool caydha iyo taajir saanyadeye ma simana gabadhii sirqowdiya gaari soocani ma simana sarkaal ciidan iyo sabi dhallaan ee afartaasa intaan ka dayay sabab ma raacsiiye ma saleeyey aadmigu waa isku seegaa saxiya khalade cidda uu ninkaasi la hadlayay ka sikadaa ayuu kusoo gabagabaynayaa sabtii kibirtay baan seef la dhacaya waa ognahay soomaali sab iyo samaala soomaali loo kala saaray ciddan sabta lagu sheegayay lalahaa ma tiidin maxaa leedahay dad sirgooye laho saxanina waa awowgay wuxuu yidhi taariikhda duunka haddaan dib uga faalloodo diiwaanka waxaa kugu taalla waa dir baanahay maantana duriyad baadaan nagula doodeen hadba inaad dul noo sheegateen waa dayisnimo adoo aabahaa diidi baa dooni ruux kale gabay nooc midda kale gabayga maya eg gabay noocaasoo kale ma haysaa adale daarood ma wada qalan ninkan waqtigiisii u qaatay doodu xiisa yeelatay runtii 2 nin oo waxaa jir mucjiso ah oo labaduba aftahano ah taariikhyahanna gabayga mid kale uu tirnayo waa suusla iskale isagu ma bale waxaad ku qoraysaa abwaan suusle safti kibirtay ku qor youtube hadda ku soo baxaya abwaan suusle ka sikada war gabaygan maxamuud daalin baa le war gabaygan maxamuud daalin baa le adeer haddana ma haysaa gabay awooyaashaa ku tirnay gabaygan awowgay baa leh
gabaygan awowgay baa leeyahay saaq bana nagu markaynu caynayay murmayno war ma daayirooda carruur baad noo keenteen carruur baad noo keenteen aad leedahay su-aashiga waqtigaagii walaal waad qaadatay su'aale leedahay daaradmooda dhalan arka jawaab mayoyotak iyo daayiro dani su'aalaha mudisi fiican baan kaaga jawaabay weydiiha ka jawaabo walaal horta waqtigaagii waad qaadatay aamu fadlan wixii su'aalaana daayir baa weydiinaya adigu aamu runtii laba ninoo aad u fiican baa tihiin anigu waxaan qiimeynayaa dadka say u yaqaanaan kala qaadashada dhexdnimada dhigashada suugaanta hadalka afka Soomaaliga oo hodan ka tihiin labadiin runtii markaan sheego waxaad tihiin dad Soomaalinimadoodu ay cajiib tahay waxaad tihiin cadaynaya labadaba inaad ka timaadeen meelaha asal ahaan Soomaalidu ay ka soo farcantay dood fiican oo dadka aad mutaqaanaa u soo jiidatay ay caawa dhigteen oo mucjisa ah taas waxay qasabtay dad badan inay weli ay anaga online loo yihiin ilaa kun baan gaarnay 907 qofood baa hadda daawanaysa waxaan rabaa habeen dambe inaad badan noo qabataan waxaan rabnaa hadda iga ogolaashaan doodii intaan ku ka soo bilowno habeen dambe lagu kala baxo marqaatiyaal badan u yeero rag caanaho badan ay dhaad imaado qolkan waa masalaad doodii aan duubno kadibna shacabka aan la wadaagin sababtoo ah waxaad ma ahayn kaliya dhalinyaro isku haysta qabiilnimo u dooday ma ahayn waxaad tihiin sidoo kale macallimiin bixinaya cashar taariikh oo sooyaal Soomaaliyeed ka shaqeynaya gabayda xadaaradda aad tirinaysaan waa gabayo u baahan in la kaydiyo oo aad u qurux badan marka ani waxaan qabaa labadiin iscafiya laba nin oo gobol ka soo wajiyada tihiin habeen dambe iyo dood xiiso badan aan ku balanno أنا متقنع في عن هبين دبا أن دوب برنامج كأن دوب أما أن لايف بكتيجو فيسبوك يوتيوب كمال وربا. نقطة أنكو رأيه وصح طبعا أرتني هو سو كفتم شيرني إن بدنا ذي مالا بدنا نقطة سو كفتناي وانو كفتنا وكفتن كفتن وذاك وانو نهاي تاني يدي قرن تقارن وسو كفتمين كفت كيجا سنة وحي دعي أيوم ما نسوي شيء أنا قسمع عينه وتوكل وسلا أنا وعمي سنة أما أنا وأنا كفتما وعن شيء وحي أوجي ولها أيوم ما نشعله إن دليلنا لا سعودية يجانا بالهذا هيرك أي ربهم بوننا يعني ورك الداية ما يجرس سنين هيركاس تاسواتها إسنا تاسو الدفاع أيوه هذا شر دفاع يسوي ما قاعد الدفاع بوكلا وحي ولا يقول والله هين وأنا جبي شرني وقارت إيرك إتحصلتي سكلا يعني ده ورطعه وكذا سون بعيد وأنا قلت أنا مش كسر قلت هذا هيرس كده جسني يوم بلير ساق بصدي ما كان ساق بصدي ده هير ديار كراسة ما نويميا وحويات بديلي ده هذا باش كسي طلع قلين ويجو حقه ذا كسي وجايين عندما إنه ديار بانا يوحي تاك الضبيعية إنه كفتن كسي وضنا قرحنا ولي بقى قرالة أي نقدرنا قرالة أي نقدرنا أي نيجياتنا إن شاء الله ها بس هوين دم باكري أنا نايف دمبو